jananka ku weyn xukuumadda iyo shacbiyadda dowladda Shiicada ayaa ahaa mid saameyn weyn ku dhaxleh ciidamada kacaanka Iraan wuxuu ahaa fuliyaha siyaasadaha gobolka dhexe ee Jamhuuriyadda Iraan QASIM SULAIMANI haddase tacsidiisa ayaa taala tan iyo 1989 wuxuu hogaaminayay ciidan gaar ah oo lagu magacaabo Guutada Qudus wuxuu horjoogo ka noqday dagaalada ay Iraan uga jirto wadamada Iraq, Syria, Yemen iyo Lubnaan waxa uu taageero siinayay ciidanka madaxweynaha Syria Bashar al-Assad Xisbullah oo Lubnaan joogta Xuutiyiinta Yemen iyo kooxaha Baghdad ka dhisan ee isu taka shacabka isaga ayaana aasaasay kuwan General SULAIMANI waxa uu qayb ka ahaa dagaalo kumanaan qof oo rayid ah ay ku dhinteen gobolka bariga dhaxana ka qarxay intii oo hawshan u matalayay Iraan dowladda Mareykanka uu dagaal xoogiisa afka yahay kala dhaxay Iraan ayaa qorshaysay oo fulisay dilkiisa ka gadaal markii toddobaadkii hore dad careysan xoog ku galeen shaqaaqana ka geysteen safaaradda Mareykanka ee magaalada Baghdad Mareykanku waxay xaqiijinayaan in General QASIM SULAIMANI uu ku lug lahaa abaabulka weerarka safaaradda Mareykanka laga fuliyay waxayna geysteen fal weyn Mareykanku duqeyn ayay ku dileen isagoo ka soo baxay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baghdad kana yimid dalka Syria General QASIM SULAIMANiga bariga dhexe Iraan u maamulayay horjoogaha Iraan Ayatollah Khamenei ayaa ku hanjabay in ay jawaab lagu quusto ka bixin doonaan dilka loo geystay General SULAIMANI balse qobrada ka hadasha arrimaha noocan oo kala ah ayaa dhahaya xukuumadda Iraan kuma fududaan doonto dagaal ay la gasho dhigooda Mareykan ururada dagaal ee dareemaya geerida marxuumka lagana yaabo inay iska kaashadaan tallaabo ka dhan ah QASIM SULAIMANI waxaa ka mid ah Xisbullahida Lubnaan Xuutiyiinta Yemen isu taga shacabka oo Iraq jooga iyo ciidamada Syria ee Bashar al-Assad QASIM SULAIMANI janankii dejinta qorshayaasha guuleysta markan isaga ayaa lagu guuleystay in la soo afjaro naftiisa Iraan samaxay tallaabo qaadi doonta General QASIM SULAIMANI oo ku baxay gacanta dalka Mareykanka